arrintan arrin aad iyo aad muhiim u ah waaye ciidanka Kenya kan jooga Jubbaland joogane waa ciidan Kenyaati ah kan la leeyahay way soo galeen waa ciidan Kenyaati ah inay is celinaynin oo danahooda ay muxuu ahay iska hor istaagaynin waa waxad waxa la rabaa waxa weeye oo aan doonaynaa total minta ciidamada Kenya mar haddii gaboodsolka intaas la eg ay yimaadeen ciidamada Kenya tilaabada ugu horeyso ee xukuumadda ay qaadayso ayadoo u marayso mandate-ki iyo sharciyada AMISOM u marayso waa guud ahaanba in dalka laga saara waa in laga saara dalka 100 mar ayaa xadgudubi ay dhaceen waxa la leeyahay waa ciidan soo galay iyo ciidankii joogay ee AMISOM ma la kala garanayo mar haddii dalkaas cilaaqtan intaas la eg uu nagu hayo ciidankiisa inuu sii joogo dalkeena sharci ma noqonayso ma la qaadan karo mana ogolaanayno mana ka yeeleyno in inta la burburiyo anteenooyin dadkii la laayo si aad gabadha sheegaysa xildhibaanada Dalees xoolihii la laayo haddana ma taqaanaan dhiraano warqadaha la qoray iyo kana la sameeyo runtii juhdiga laga rabay xukuumadda waa bixis jeeso ay xumaan markay juhdiga ay bixinayso xukuumadda ayada mas'uul naga inay counterpartkeeda la xiriirto waxa weeye markay dumiso taiwariskaas communicationka immediately waxaa la isticmaalaa dadka Soomaalida oo halka degan oo dalka gudihiisa degani waxaa u soo gala line-ka Safaricom oo Kenya marka mar waa economic sabotage mar waa economic dominance marna waxa weeye superiority ama maxaa la yiraahdaa gacan sareyn Soomaali markaan ku fasiro marka koowaad waxa weeye in kharbudaad dhaqaale ay samayso marka labaadna waxa weeye in ay ku gacan sareyso maxaa la yiraahdaa iyadu dalkayaga gudihiisa marka saddexaadna waxa weeye xogta aan anagu leenahay oo telefoonadeenna inay hesho oo nagaga sareyso nagaga gacan sareyso xog ahaan intaas oo arrimoodu isla socoto weeye waxay la mid tahay duulaan occupation qabsasho qayb ka mid ah dalka Soomaaliyeed oo duulaana iyo isticmaar gelin qayb ka mid ah dalka Soomaaliyeed weeye Assalamu alaikum to my Somali brothers and sisters. Garma Frank Sudawada. Welcome to Nils Furniture Design. It's Hussein, the director here at Nils Furniture Design once again. We have an amazing campaign for this Ramadan. If you know anybody that needs any furniture, jif, jodari, armajo or faddi, if you call the telephone number that's attached below right now, you can get a free